xaaladda madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida ee waddanka Ethiopia Cabdi Maxamuud Cumar ayaa laga deerinayaa iyadoo qoyskiisu ay sheegeen in jirdil xun lagu geystay gudaha xabsiga uu ku xiran yahay. haddaba xubno ka mid ah qoyskiisa gaar ahaan hooyadii ayaa la soo xiriirtay TV-ga Universal qadka ayayna hadda si toos ah ugu jirtaa Diib Mahad Colow oo ah hooyada dhashay madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia mudane Cabdi Maxamuud Cumar. maama haddii aad maqli karto bal adiga ayaana la soo xiriiray maxay tahay sababta aad nala soo xiriirtay? waxay tahay maanta anagu qadadiga maqaarna anagu 4 ruuxa haye waanu u tagnay Cabdi Maxamuud oo kolkaan gurigii galay baanu aragnay ninkii oo la jiddilahayo haye way soo bixiyeen xoog bay u soo jiideen ilaa 3 jaray ka soo tuureen haye 3 jaray anaguna aan daba orodno noqaylinay banaankii jarada hoosteedu yuu ku tuureen waa gartay marka anagi waan qaylinay kol 4 iyadii kolkaan ku daray dhawaaqeeno orinay anagi wayna soo eriyeen haye aniga iyo gabadh hadii ilaahay ka dhigo way dileen oo aad bay u dileen oo aad bay u garaaciyeen xitaa madaxa way ka garaaciyeen diikada uu qabaa waa gartay isagii af labadiiba cabaaday talaayay buu yidhi waaye annaguna waan qaylinay waa gartay way jiideen hiriiririg bay way jiideen kolkii anagii neeriyeen bay jiideen annaguna waa aniga gabadha qadar qabo iyo anigaa orodnay labada dumarkiina meel bayna kaga hadheen kolkaa waan orodnay waan garab dhignay iyaga oo jiidoo hadalkii uu gabay oo jiidahayaan baanu meel ka eegnay markaa meel aanu isini waa suuli oo garaacayaan madaxa ka garaac oo qoriga shubkiisa la dhacayaan ayaanu hadii anagina meel ka eegnoon garab orodnay markaa anagina waanu qaylinay way jiideen xoog 8 nin baa jiidaysay ninka 8 nin oo kor u qaadi weydo jiidaysay hiriirigta ku hayay waaya anagi waan qaylinay waana garab orodnay ilaahay oo noo kacbaanu nidi waan barinay waan kacnay anagi baa isku qaylinay markaa qoray haddana noo soo direen meel aanu isini waa suuli aniga gabadha qadar qabo meel aanu isini waa suuli ayay iyagoo jiidi saa ugu tuureen waaya intaa kadib maxaa dhacay? way neeriyeen annaga oo banaankaa ladiin saaray annaga way neeriyeen banaankaa ladiin saaray meel banaankay noo saareen aniga wayba i tuureenba aniga kolkaan say waayeen fadhay isku tuurada i tuureen oo gabadha neega qadar qabaa aniga ay qabatayba waaya raashinkii aad u wadeen ma laydinka qaada mise aynan qaadin raashinkii way nagu diideen ma ayna qaadin raashinkii waan soo celinay maba ayna na tusinba saasay meel ugu rideenba meel bay ku rideen ama kolkii isidi jiinka yari saa ugu xidhan tahay yaanu isidi waa suuliyo intay saa hadii ilaahay dhigo ugu tuureen bay saa u dileen oo jawda ka saareen waaya wuu bedelmay isagiina wuu bedelmayda nafba wuu bedelmayda isagoo sidii mayday jiidayeenba marka dabcan ma hubiseen in isaga weli uu nool yahay oo xaaladiisu ay caadi xageenu ka hubin kolkii maydkuba ahaa mayd wuuba suuxay kolkii wuu suuxayba markaa kolkaanu nidhi maydka na siiyo oo maydka noo soo tuurana annagiiba na soo eriyeen waaya marka waxaanu ku ooyeyna maydkiisaanu ku samraynaa maydkaa nala siiyo wuxuu ku xiran yahay mayd wuuba dhacayba anagu maydun baanu wuu suuxayba dhag wuu mayd buba ahaaba waaya halkuu ku xiran yahay way ku tunteen qoriga shubkiisa la dhaceen way ku tunteen anaga arkayno intahay maanta wax kama tusin waaya maxaa keenay in la dilo ama ay jir dilaan ma isaga ayaa ka dhaga adeegay amarkii ciidamada xabsiga ee ku haya maya guba awalan waanu u tegtegaynay maya isagii ama kolkaanu galay baanu la kulanay iyagoo aqalkiisi ku dilahayo aqalkiisi ku garaacin baanu la kulanayna waaya marka maxaa tilaabahood qaadeen adinka si arrintan aad xal ugu heshaan? yaanu tallaabo u qaadaynaa waxaan tallaabo u qaadnaba ma haysano wax nala hadlaba ma haysano
wayba neeriyeen wax nala hadlana ma haysanaba wax nala hadlana ma haysano miyaanu isagu lahayn qareenno u dooda oo kiiskiisa maxkamadaha ay hor yaalaan ka dacwooday wax qareen oo neerku kuu sheega ma garanayo wax qareen oo kuu sheega miyuu booliskii iyo dadkii uu wadayna moojiba wax qareen oo kuu sheega ma garanayno waa gartay marka hadda xabsiga Addis Ababa ku jira miyaa anagu dee halkaan baanu ku ogeyn isagoo aanu moodnay nafta inay ka baxday iyo in kalena war kuma hayna halkaan baanu anagu ku ogeyn oonu kaga nimid oo nala soo eriyaya meel tuuliya ay afka u geeyeen meel tuuliya oo kiinka yari saa ugu dhisan tahay oo aniga gabadha khadran silmalaha waa tuuli ayay saa ugu tuureen madaxa kolkii noogu dambaysa aragaanu aragno waayo hadda maxaad doonaysaan marka waxaanu doonaynaa dee hadduu nool yahayna in nala tuso hadduuna noolayna in maykiisi naloo soo saaraanu rabnaa ma isku daydeen inaad maamulka kale deegaanka iyo dadkii guud ahaan soomaalida ee waxgalka u ahaa aad la kaashataan bal si arrintan wax loo yaanu la kaashanba dee waxaan la kaashanaba ano ma garanayna waxaan la kaashanayna ma garanayna gabadhiisana waad la hadlaysaa gabadhii qadar way la fadhidaa gabadhii qadari afar ruux baana walaashay baa igu jirtay marka anagu wax aanu u dhaqaaqnay iyo wax aanu garanaynaa midna ma jirto anigu hooyadii baan ahay oo waan qaraxsanahay anu maydkiisaan abaal ku qaba maanta waan safri lahaa maydkiisa haddaan arko maxaad codsanaysaan marka waxaan codsanaynaa hadduu nool yahayna in nala tuso hadduu dhintay oo dileedna maydkiisa ama haasana inaynu siiyaan labadaasaanu codsanayaa miyaan lidiin sheegin wakti maxkamad la soo taagayo oo arrintiisa waxay noo sheegeen jimcaha soo socdaanu sugayna maxkamadda jimcaha soo socdaanu sugayna way ka dadejiyeen haye ma jimcaha soo socdaanu sugaynay waaya marka iyadoon jimcihii la gaarinaya arrintan dhacday ya iyadoon jimcihii la gaarinaya arrintan dhacday jimcihii weli maynaan gaadhin jimcaanu u fadhinay inaysa la keeno oo ballantu jimcahay ahayd waaya gabdhaha kale oo kula jooga bal noo dhiib iyana gabadhiisii baan u dhiibayaa waaya hallo waa ku maqlaa walaal magacaaga iyo siday bal wax u dhaceen maanta ogaanta magacaygu waa Sadiiqa Cabdi Ismaaciil maanta markaanu qadadii u geynay markay ahayd 3 galabnimo oo 10 daqiiqo la yaanu galay waxaana laga hor keenay oo qolkii uu ku jiray markaanu hor istaagnay laga hor keenay isagoo 8 askari ay u hanjabayaan oo hadallo badan la leeyahay waaya markaan nidhi maxaa dhacay way soo tukiyeen ilaa uu 3 jaranjar oo dul yaala ka dhulka uga soo dhacay waaya markuu dhulka u soo dhacay wuu qayliyey markuu qayliyey kadib waanu ka soo daboornay annaguna jaranjartaanu ka soo dabadegaynay waxay bilaabeen inay jirdilaan oo bahalo gaagaabanay wateen bay feedhaha kala dhaceen waaya kadib waxaa dhacday inaanu qaylinay annagii askartii ayna kala tuurtay buuq iyo qaylaa meeshii ka dhacay dad badan baa isugu soo baxay waa la jiiday anigii markii waan miyir beelay hooyiyaa daba orday ilaa ay sii jiideen nolol iyo dhimasho geeri iyo nolol wuxuu ku sugan yahayna maanaan garanayno adiga xaaskiisa ayaa tahay ani xaaskiisa aan ahay waaya maanta ka hor ma laydin ogolaa inaad aragtaan cuntada u geysaan xaaladiisa ogaataan dawada u geysaan ha cuntadaanu u geynaynay waanu arkaynay dee sidii ruux maxbuusa yay ahayd laakiin maanta qofkuu ka bedelaa markii dambeenu ku noqonay meeshii aanu nidhi miyuu dhintay miyuu nool yahay sabab maxay waxaani u dhacayaan markaanu su-aalaha weydiinay annagii waa nala soo eriyey waaya dumar askaraa naloo soo diray ilaa meeshii nalaga soo jiiday ka hor maanta haddii aad la kulanteen ama la kulmi jirteen sidee u ahaa xaaladiisa maxaad ku aragteen xaaladiisu adigu iska xanuunsanayay dawana lama siinaynin laakiin dee xaalad ruux maxbuusa ayuu ahaa marka ma idinla sheekaysanayo waa fursad mu hesheen aad la hadashaan haa waan la hadlaynay
marka de wunala hadlay sidii ruux maxbuus ee caadi loo wada hadlo waqti go'aan buu ahaa ilaa 7 daqiiqo waan la hadli karnay ma codsigiina muxuu yahay hadda maxaad doonaysaa codsigaygu wuxuu yahay haddii uu dhintayna inaan meydkiisa aasano haddii uu nool yahayna inaan noloshiisa ogaano kuwaas waxay ahaayeen hooyada dhashay madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar iyo xaaskiisa oo telefoonka Itoobiya igu waramayay kana waramayay dhibaato ay sheegeen in loo geystay madaxweynihii hore isagoo ku jira xabsi ku yaala wadankaasi Itoobiya waxaan la xiriirnay wasiirka warfaafinta ee wadanka Itoobiya iyo wasiirka warfaafinta iyo isgaarsiinta wadanka Itoobiya Ahmed Shide ahna gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya telefoonkiisana kama aanu jawaabin markii aan isku dayn inaan xiriir la sameeyna balse aan wax u weydiino arrinta la xiriirtay jirdilka la sheegay in loo geystay Cabdi Maxamuud Cumar madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya